بسم الله الرحمن الرحيم داوديال halkani waa shabakada caalamiga ee Boroma News oo aanu ku wareysanayno xafiiskiisa uu ku leeyahay taliyaha qaybta ee gobolka Awdal ee isagu guud ahaanba amaanka gobolka Awdal u xil saaran Xasan Ismaaciil Yuusuf Xasan Gacmo Yare oo isagu ah taliye inta badan gobol badan oo Soomaaliland ka soo shaqeeyay taliye markii hore Boroma News ku soo dhaw waa dhaw Boroma News ku soo dhaw ku dhaw taliye bal guud ahaan waxaad ka warantaa dadka reer Awdal iyo tan iyo intii shaqada timiday adiga iyo bulshada reer Awdal bal xiriirkeedii dhaxay xiriir wanaagsan baa noo dhaxeeya run ahaantii reer Awdal xiriirkaas oo aynaanu ka wada shaqeyno nabadgelyada reer Awdal waa dad ehel nabadgelyo wadada dhinaca kale gobolada aad moodo inay kaga horeeyaan dhinaca nabadgelyada wax dhibaato oo gobolka ka dhacay intaan joogay ma jirto taliye dhawaan waxa yidna jirtay lughaya tagtay bal arrimii lughaya aad u tagtay warar kala duwan baa ka soo baxay deegaanka sababihii aad u tagtay bal adigu horta intaan arrimaha u gudagelin adoo arrinkii aad lughaya u tagtay arkaan u tagay lughaya wuxuu ahaa kormeer maadaama gobolka ku cusbaa lughayana ay gobolka ka tirsan tahay ciidanka booliiskuna joogo waajibna ay ugu tahay inaan tago degmooyinka gobolka hoos yimaada iyo saldhigyadeeda kormeer shaqo oo hawleed baan u tagay nabadgelyaduna caadi bay ahayd wax dhibaato oo ilaa hadeer aan anigu ogahay oo ka jira lughaye ama gobolka guud ahaan ma jiro way taliye dhawaan markaad socodka ka soo noqotay ka bacdi aad warbaahinta qaar la hadashay shabakada caalamiga ee Boroma News iyadna socdaalkaagii kadib bay degmada tagtay degmada waxay ku soo aragtay dadkii deegaanka ka cabanaya ciidamo Somaliland oo kuwa badda iyo military iyo police space ugu jira oo dadka badii ka hor istaagay degmadii lughaya 15 istabood in ka badan baa lagu wareejiyay taliye adiga amaankii gobolka Awdal ugu sareeya arrimahani maxay saaran yihiin bal ka waran kolley checkpointiyada ama kantaroolada waa mid lagu sugo amaanka waxay la tahay amaanka un baa la dardargelinayay laakiin wax dhibaato ama wax nabadgelyo daraa oo lughaye iyo ereyadeeda deegaankeeda aniga iiga aan ka arkay ama ka jiray ama cabatin soo gaaray muu jirin laakiin way jiraan hawlgallada ciidamadu oo ciidamadu police baa jooga marines baa jooga ciidan qaran baa jooga shaqooyinkooda caadiga ahaa haday nabadgelyo tahay haday difaac ilaala xeebeed tahay haday kuwii ciidanka qaranka tahay heegan bay mararka qaarkood ku jiraan heegana gaarina way dhici karaan laakiin waxa maanka lagu sugayo iyo shaqada ciidamada baa lagu hayo wax dheeraad ah iyo cabashada ariga soo gaadhay ka nabadgelyahan mid ma jirto way taliye mid kala oranaysa baddo kale wax ka badan dhowr iyo 50 laash baa badda dul yaalay dadka dhalinyaradii markaan deegaanka lughayaan kala hadlay waxay ii sheegeen in badan ciidamadu ka hor taagan yihiin dhammaan laashashka laga wada dhaadhiciyay maxay ahayd makiinadii ay ku galayeen badda hadii dhalinyaradii badda laga hor istaago amaankiina ciidanka inta laga degmada uu ku hareeraysan yahay taliye sida heeganka loogu jiro miyuuna wax ka fool xun ka iman karin dhalinyarada badda inay ka shaqeystaan marqumaal ka noqdaan taliye laga hor istaagay kulay ariga warkaas reportka cabashadaas mid soo gaaray ma yahayn mana maqal shaqadana waa la kala leeyahay badda waxa maamula ciidan la yiraahdo ciidanka ilaalada xeebaha laakiin wax dhalinyaro ama maamul degmo ama taliye saldhig ama shacab cabasho arrimaha ku saabsan oo laba habeen baa jooga muddada aan joogay soo gaadhay ka taliye qaybeedahan ma jirto bulshada ma aragtay maadaama ammaanad u socoto dadka iyo deegaanka inaad barataad u socotay dhalinta ma aragto ma tiri waralkani waa deegaankeeni waa dalkeeni cabashada noocan intii media soo marnayaan maadaama degmadii gaadhay taliye dadweynaha odayaasha qaar baa la kulmay maamulka la kulmay taliye iyo waxa la kulmay maayarka oo kale iyo gulihiisa deegaanka ciidamada oo aan wada kulnay saddexda ciidan ee meesha deeganba cabatiro taagtaagan xagga inta muddada aan joogay ima soo gaadhin taliye mid kale wali lughayaynu joognaayo arrimaha lughayo ma xog saarna waan imanayna degmadan saldhiga kuwa ee Boroma waan ku soo noqonaynaa iyo deegaanada galbeedka wixii muddooyinka ugu dambeeyay ka socday taliye markii halka marayso dadkii aad soo aragtay odayaal hadaad aragtay saddexdii taliye ciidan waxa soo dhabay markaad aragtay
waxaa la sheegaa deegaankaasi oo dadka ay leeyihiin wax badana looga hor istaagaya oo dadku ay sheegayaan shacabka waase iyagu hadalka u dhigeen waxa la shashkeegan loo diidaya inaanu ka kalluumaysano waxaana laga leeyahay hubbaad soo dejisaan sigaarka tarabaana dhoofisaan inaba waxaa kiisas la mid ah oo lagu yidhi taliya waxaan soo qabanay kiisaskan hubkanaanu keennay taliya sigaarkan oo sharci darro waddanka ka baxayaanu keennay sidaasaanu badda waxa yirno ma jirtaa taliya maya ma jirto wax cabasho oo haba yaraatee aniga arrimaha iga soo gaadhay lughaya dhalinyaro cabanaysa laashash la iska soo hortaagay Soomaalidu iska saxaafadaha la fidiyaa laakiin ma jirto wararka waxaan ka hayaa ma jirto oo cabashood ogtahay ma jirto wax cabasho aad way boorama inuu soo noqonaa taliya ka waran bal gudaha boorama shaqadaad ka hayso iyo maxay ahaydey dadka reer boorama adiga deegaanka inta degmooyinka kale aan u bixin bal dadka reer boorama shaqadayda ka dhaxaysa ka waran shaqo wanaagsan baa naga dhaxaysa waxaanu ku wada shaqeynaa nabadgelyada booliis baanu nahay in nabadgelya boorama ka jirta miday ku soo caanamaaleen waad moodo inay abiyo isir u lahaayeen baa ka jirta annana waa ku garab taaganahay waxa deer taagan oo dhibaato ayna haba yaraatay ma hayno way taliya dadku inta badan boorama waxa laga sheekeeyaa waxa dadka reer boorama dhulkii ka sheekeeyaan waxaad ka soo oo dhulka inta badan waxa dhibaatada dadka ku haya lagu oranayo halkan uu kilometriga soo galay halkan uu kanisidaya inta badan aad aragto in dawladdu oo sameeyay adana intii gaarinba stationka iyo saldhigyada lagu meereysto sanaag baad ka soo shaqaysay sool baad ka soo shaqaysay hargeysa ka soo shaqaysay gibili baad ka soo shaqaysay xaaladan maxalad guud ahaan dalku ka sameeyayba isoo boorama u gaar boorama u gaaraha dhulku dhibaatooyinkiisu badan yahay isqabsigiisu badan yahay gobolada kala mid tahay baan oran karaa gobolada kala mid way maxaa ka duwan goboladii aad ka soo shaqaysay oo boorama maanta aad oran leedahay dadka reer boorama waxay gobolada kaga duwan yihiin waxay kaga duwan yihiin wadada nabadgelyadooda aad u ilaashada waa meel nabadgelyo ah nabadgelyadana waanu kula shaqeynaa waanu ku garab taaganahay waa mid ka tibi shacbiyada reer boorama taliya mid kale dhawaanahan hore adigoo taliya abaad gobolada kale adoo jooga maqli jirtay kacdoon reer awdal wadaan oo suldaan wabara hogaamiye ka yahay ayaaba socda oo gobolka awdal ka socda kii mar labaad adigoo xukunkii joogo kursigii ammaanka ee gobolka ugu sareeyay fadhiyo soo noqday maxaad kala socotaa ma soo gaadhin gobolkan aan joogno ama xuduudaha Soomaaliland ba xaajiga magacaalihi waa uu la sheegaa dhinaca Itoobiya lagu sheegaa laakiin anagu ismaanaan arag xuduudda Soomaaliland totally ma soo gelin way taliya hadii uu soo noqdo kacdoonkan ama halganka suldaan wabar oo wada waa sidoo soo hadalka u dhigay adigu ka taliyaan ma sidii kuwii hore oo bad guluf cadaadad ku eegi mise wax ka duwan baad keenayo waa balanta ninkan laga sheekeynay anigu oday ahaan ku arko maxaad kaaga qorshaysay waqtiga hala gaaro wari waqtiga kulli ciidan baanu nahay booliis nabadgelyaanu qaabilsanahay laakiin hadda wax ka jira ma jira way degan tahay waqtiga marka la gaaro taladeeda iyo awaamirteeda leedahay deegaanadan ku xareeraysan buu maray kormeer buu sameeyay dad buu la hadlay wali isaga halkii bay kaga dhagan tahay maxaad suldaanka laftiisa oo dhan lahayd maya suldaanka anigu meelahaas baa lagu sheegaa saxaafadda iyo hadalka laakiin anigu waxaan ka arkay ma jiro suldaanka ismana naqaan waxaan oran lahaa tafadal nabadgelyada ku soo dhow wax kale ma jiraan horuu joogi jiray laakiin si taliya horuu joogi jiray nabadgelyada lafteeduba ka biyadiidu wax kale oo dalkan iyo dadkan uu ka tabanaya baa jira taa lafteedu diidan yahay waliyo tiibu taagay taa waxa weeye kulli waxay u taalaa siyaasadda iyo qaranka annaga ka nabadgelyahan xaajiga ismana arag meelahaas baa lagu sheegaa waa warar ku tiri ku teena laakiin ka nabadgelyahan cidii nabadgelyo rabta qarankuna waa soo dhaweynayaan anana sidoo kale aadiitan ugu dambeyn dadka reer boorama maxaad leedahay taliya dadka reer boorama aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan ugu mahadnaqayaa nabadgelyada sida wanaagsan ay noogala shaqeeyaan waxaan lagu soo jeedinayaa inay sii adkaystaan nagula shaqeeyaan nabadgelyada ay abka u lahaayeen
aad baad maasanta daawadayalkaasi wuxuu ahaa taliya xasan ismaaciil yuusuf gacma yare oo ah taliyaha qaybta ee gobolka awdal oo muddooyinkii ugu dambeeyay socdaal nabadgelyo oo ku horgalida iyo deegaan barashada gobolka waqooyigii gobolka barigiisa iyo waqooyigiisa ku soo maray maantana shabakada caalamiga ah ee Borome News halkan ugu waramayay gaashaan la dhexe xasan ismaaciil yuusuf gacma yare aad baad taliya maasanta aad iyo